sanada tagay mid kalena oo ku bilaabanaya maxay yihiin waxyaabaha kama hadlayno saddexda sano soo socota sanadka soo socda waxyaabaha ku qorsheysan inaad gaarto waxyaabaha ay qorsheysan runtii waxa ugu horeeya amniga waan xoojinayno haduu Ilaahay yiraahdo tayada ciidanka aan kor u qaadayno tababarkooda ciidanka kor u qaadayno waxay u baahan yihiin nolol ah aan u dhameystirayno iyo agabba haduu Ilaahay yiraahdo isku dhafkan ka hadalnay aan xoojinayno haduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay dal aan amni lahayn wax uu ka shaqeyn kara ma laha xaqiiqatan waxaa jira inaan aamino oo waxyaabihii anigu aan dadka ku kicinayay oo aan u tagayay meelaha ciidamadu u badan yihiin waxay ahayd inaan muujiyo dalka inuu ku jiro dagaal inuu dalku dagaal ku jiro oo aan u baahanahay inaan dalka ka xoreyno shabaab macnaheedu waxay tahay taasa priority ah maaha kulligeen inaan ganacsi wada aadno aan u fakarno dalka inuu nabad yahay maaha marka la helo dalka aan xoreyno oo aan ka xoreyno shabaab yaa nabad timaada nabad markay timaado yaa la helaa maamul iyo kala dambeyn yaa la helaa markaas canshuur la aruuriya mushahara la bixiya development iyo ganacsi ayaa yimaada marka waxaan xoog saaran dadka inaan fahamsiino qof walba oo Soomaaliyeed inuu qayb ka noqdo dib u xoreynta dalka waan uga xoreynaa shabaab si aan nabad u helno haddii aanan taas focus ka saarin wax kasta aan sameeyno haday noqoto in dadku ay ganacsi aadaan ama nolol ay raadiyaan ma imaanayso maxaa yeelay dalkii wali maalmo qarax baa ka soconaya dibkiina waa taagan yahay amni xumadiina waa jirtaa inaan dadku ku baraarujino inaan dalka ka xoreyno shabaab oo qof walba oo Soomaali ah kaliya aan loo deenin ciidamada aan loo deenin qof walba oo shacab uu qayb ka qaato si dalkaas aan uga xoreyno shabaab muhiimadda labaad oo aan rabo inaan wajaho waa dib u heshiisiinta oo hadda aan bilaabay safarkii aan ka imid gobolada dowlad goboleedka Puntland iyo Galmudug oo aan ku dhameystirnay ama meel fiican ay noo marayso ahlu sunna wa jameeca iyo dowlad goboleedka Galmudug ay isugu yimaadeen oo hadda aan galayno wixii loo baahan in la dhameystiro arinta gaalkacyo naftigeeda meel fiican ay noo maraysaa oo dadka gaalkacyo degan waxay qorteen heshiis ay ku heshiiyeen u baahan laakiin in lagu sameeyo dhaqangelin ama implementation lagu sameeyo gobolada dhexe dhowr meelood iyaga naftigooda waxaa ka bilowday dib u heshiisiin oo maantadan aynu joogno Sheekh Shaakir wasiirka koowaad Galmudug uu maanta joogay Caabud Waaq iyo Balanbal uu dhameystirayay dadkaas ay halkaas jooga khilaafaadkooda marka sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan tageynaa meel walba si ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah aan u nabadeyno aan u heshiisiino taasna waxa ay nasiinaysaa fursad aan ku adkeynayno amniga oo aysan al-shabaab aysan uga faa'iideysan arinta saddexaad waxay tahay dhameystirka qabitirka dastuurka oo sanadkiisa meel fiican noo maraya gudiyadu ay aad uga shaqeynayaan consultation iyo wada tashi badan ay wadaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay taasi ay waxaan ku raahdaa na gaarsiiso inay taasi na gaarsiiso wajigii aan ku gaari lahayn ama qaabkii aan ku gaari lahayn qof iyo cod 2020 haddii ay yiraahdo hawsheedana waa ku dhex jirnaa oo inclusive politics waa ku dhex jirnaa inaan dhameystirno taasna runtii hadda waxaan nagala shaqeynayay dowlad goboleedyada waxaan ku raahdaa inaan isla fahmno qaabkii aan u gaarsiin lahayn dalka qof iyo cod aan u gaarsiin lahayn tan kale oo muhiimka ah waxay tahay inaan dardar gelino kaabayaasha dhaqaalaha oo aan runtii maalgelin iyo shaqo abuuris aan u sameeyno dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddii aanan laga shaqeynin shaqooyinkooda iyo horumarkooda iyo laga shaqeynin qasbiyan iyada naftigeeda waxay dib ugu noqonaysaa amniga waxaan hadda soo dhex dhignay meelo kala duwan oo ah mashaariic waana kordhinaynaa insha Allah kuwaasna hadduu eebbe yiraahdo oo aan dhagax dhignayna waa dhameystirnaa insha Allah